hooyadii dhashay macaanida sharafta lahayd waa la caayay waa la inkaaray faqash baa laygu tilmaamay laakiin hooyo sharaf leh dhashay alxamdulillah kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaasha sharafta leh ee ku xiran janaalkeena Fandhowr Media alaabaalka waxaad kala socotaan barnaamijyo xiiso leh warar iyo warbixino oo idin soo gelin maalin kasta iyo mar kasta fadlan markii ku wiirsatay ta janaalkeena soo boqoto subscribe saaro si aad ula socoto barnaamijyada iyo warbixinaha aan soo gelin mar kasta haddaad horey noola joogtana like saar muuqaalkan si uu u gaaro asxaab badan una sii share garay magaalada Helsinki ee dalka Finland waxaa ku geeriyooday lagaroono Soomaali ah oo la oran jiray magaciisa Cabdirashiid Yuusuf ninkan ayaa muuqaalo anshaxmo ah oo ugu wanaagsaneen indhaha soo gelin jiray baraha bulshada ku kulanto ninkan ayaa muddooyinkii ugu dambeysay muuqaalo anshaxmo ku baahi jiray barta uu ku leeyahay Facebook halkaas ay dad badan ka dhaleeceyn jireen kana falceli jireen arrimaha waxyaalaha uu soo geliyo ee anshaxmada ah ninkan ayaa iska dhigi jiray dumar balse waxa uu ahaa nin raga kuna dhashay nin raga balse waxa uu iska dhigi jiray dumar oo ku matali jiray muuqaalada uu soo geliyo ee anshaxmada ah ninkan ayaa bulsho badan ama waalidkiis ka dhaleeceyn jireen barta uu ku leeyahay Facebook lagana habaari jiray hase ahaatee geeridiisa waxaa xaqiijiyay Shaakir Ciise ay isku magaalo ku wada noolaayeen ninkan magaalada Helsinki ee dalka Finland Shaakir oo boos soo geliyay barta uu ku leeyahay Facebook ayaa waxa uu yiri waxaan xaqiijinayaa ninkii lagaroonaha ahaa ee muuqaalada anshaxmada ah soo gali jiray Facebook in uu ku geeriyooday magaalada Helsinki ee dalka Finland sababtaasna uu geeriyoodana ay tahay coronavirus ku dhacay oo la xanuunsanayay maalmihii ugu dambeysay ninkan oo xaalad xun ku jira maalmihii ugu dambeysay ayaa wuxuu ku jiray isbitaal ku yaala magaaladaasi oo kula xanuunsanayay coronavirus ayaa maalmihii ugu dambeysay ama bilihii ugu dambeysay dilay dad caan ah ama dad bulshada dhexdeeda magac ku lahaay hase ahaatee ninkan ayaa waxaa ku farxay geeridiisa dad badan oo ka daawo jiray Facebook kana dhaleeceyn jiray had iyo jeer ninkan ayaa waxa uu ahaa xeeta Fuad Blue Makeup oo asna ahaa khaniis ama lagaroone Soomaali ah ay ku wada noolaayeen dalka Finland halka aad nagala socotaan saaxiibayaal waa channelka Fandhowr Media oo alaab u taagan inuu ka qabtiro wararka iyo warbixinada iyo barnaamijyada social media la hadalhayo had iyo jeer fadlan markii guursatay ta channelkeena soo booqato subscribe saaro si aad ula socoto barnaamijyada xiisaha badan ee aan soo gelino mar kasta haddaad horey noola joogtana muuqaalkan like saar siina share garay si uu u gaaro asxaab badan oo aad ku mahadsantihiin daawashadiina iyo sida qiimaha badan ee aad noola socotaan mar kasta noona dhiirigelisaan oo aad ku mahadsantihiin daawashadiina